qof khabiir oo wax garada kaliya ayaa ka jawaabi kara. waxaad dul joogtaa bad furan, doontaada ama huurigaaguna wuu quusaya. si kadisa ayaa laba jasiiradood adiga aad kaaga fogeyn oo aragtay. waxaad leedahay awood kugu filan oo kuu saamaxaysa inaad labada jasiiradood miduun gaadho. hase yeeshee jasiiradda koowaad xeebteeda waxaad ka arki kartaa burcadbadeed qoryo iyo seefo wadata. ma garanaysid burcadbadeedan inay saaxiibo kula noqon doonaan iyo in kale. jasiiraddii kale labaad xeebteeda waxaad ku arki kartaa qabiil dhan oo wata qaansooyin iyo leebab. mana ogid oo war uma haysid inay saaxiibo kula noqon doonaan iyo in kale. haddaba labadan jasiiradood ayaa dooran lahayd. jawaabta saxda ah ee macquulkuna waa haddii aad doorato burcadbadeeda waxaa laga yaabaa inay luuqadaada fahmaan maadaama meel kasta waa dhacaan, meel kasta waa tagaan, aad isfahantaan ama ay madax furasho kaa qaataan. laakiin qabiilka haddaad dooratid waxaa laga yaabaa inay cawaan noqdaan oo ay ku cunaan hilib ahaantay ku karsadaanba. qabiilaanada aqoonna layskuma aamini karo. gabadh dhalinyaro ayaa la helay iyadoo mayda, waxaana laga helay qolka dharka lagu kala bedesho. 3 qof oo macaamiil ayaa meesha joogay, mid kamid ah ayaana dilaaga ah. haddaba maskaxdaada ma tuujin kartaa 3 qof ee macaamiisha ama kasoo saari kartaa ka dilaaga ah qofka uu yahay? 3dooda miduun ayaa dil geystay oo dilaa ah. isku day inaad soo saartid ka dilaaga ah. jawaabta dilaaguna waa dilaaguna waa ninka idin muuqda ee dhiigu gacantiisa kaga yaalo ee koofiyada madow iyo jaakada cad wata. aad ayay u adkaanaysaa inaad labadan midkood dooratid. ka fakaro choice-kaaga barta comment-ka kusoo dhiibaana waxaan kuusoo sheegi doonaa bidnillaahi tacaala waxa uu dareenkaasi raacsan yahay. inaad jacaylkaaga dhabtaa heshid inaad malaayiin dollar ku guulaysatid. jawaabtuna waa haddii aad dooratay adigu ma doonaysid inaad kaliga isla faraxsanaatid. haddii aad bi dooratayna maba aaminsaneed inuu jiro jacayl dhaba oo run ah. qof maskax maal oo khabiira kaliya ayaa garan kara jawaabta. Tom iyo Mary hadda ayay isguursadeen, xafladda ayayna joogaan iyagoo ay weheliyaan saaxiibadood John iyo Kate. John aad ayuu ugu dabacsan yahay Kate, waxaana uu ugu yeedhaa oo kaliya magacyada macmacaan ee wanaagsan. erayada macmacaan sida honey, qaaliyo kale. honey waa malab aad u macaan. my love, jacaylkaygii. darling, gacaliso. sweetheart, macaanto. ayaa tiri eeg, jacayl badan ayaa ka dhaxeeya. Tom ayaa saaxiibkiis ku yiri adigu xaaskaaga aad ayaad ugu macaan tahay. kadib intaas oo dhan waxaad wada joogteen in ka badan 20 sano. adiguna markasta waxaad la timaadaa naanaysyo kalgacal leh. Tom isna isagoo xaaskiisa ka hadlaya ayaa wuxuu yiri maxaa anaga noo diiday xiriir noocaas oo kale ah. kadib John saaxiibkiis Tom wax ayuu u sheegay. wixii uu hadaba John Tom u sheegay aad ayuu u farxad geliyay. maxaad is leedahay ayuu u sheegay John Tom oo farxad geliyay? waxa uu sheegayna waxa uu sheegay inuu hilmaamay magaceeda. saas ayuu magaceeda macaan ugu yeedhay. labada nin midkee ayaad u maleynaysaa inuu girlfriend leeyahay adigoo sawirkan ku qiyaasaya? si fiican uga ilbogo maadaama mid kasta wax khaas oo aad ku tilmaami kartaa uu ku horyaalo. jawaabta saxdayna waa maadaama uu caday kale halkaa ka muuqdo. cadayga kalena waxaa iskale gabadha girlfriendtiisa.